seminaarkan wax badan ayaa laga faa'iiday. waxaa laga faa'iiday muxuu ahaa xiriirka ka dhaxayn karo gobolka heer gobol ilaa iyo heer degmo ilaa iyo muxuu ahaa ilaa iyo heer dawladeed iyo deegaanada gudiyada maamulka deegaanada xiriirka ka dhaxeeyo iyo qaabkay u wada xiriiri lahaayeen u wada shaqayn lahaayeen mas'uuliyadda qof walba oo uu leeyahay ayaa ka mid ah waxyaabaha laga faa'iiday. waxyaalaha aan aadka muhiimka ah oo aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah sida ay u shaqeeyaan maxaan ku yiraahdaa ii sheeg maamulada deegaanada. runtii qof walba wuxuu leeyahay system uu ku shaqeeyo kala dambeyn sidii loo kala shaqeyn lahaa. waxaa laga yaabaa hadda wixii ka horreeyay inay wax iska ahayd, laakiin hadda wixii ka dambeeyo qof waliba markuu ku noqdo deegaankiisa wuxuu arki doonaa asaga iyo sida ay u shaqeeyaan gudoomiye ku-xigeenadiisa. runtii tababarkan faa'iido aad iyo aad u weyn aan ka helnay maamulka iyo maareynta qaabkan wada xiriiri lahayn, qaabka system dawladeed aan wada shaqeyn lahayn, waxyaabo si badan ka faa'iidnay. wax badan aan ka faa'iiday sida gudoomiyaha markoo kale haweenka gudoomiyaha markoo shabeellada hoose warqadda ay ii soo dirto in ay baqshad leedahay. aniga markaan akhriyo wixii ku qoran Oktoobar ama Maars wixii qabato kale bay ii soo sheegay marka wada shaqaysi fiican naga dhaxeeyay. waxyaabo badan oo hadda hore aan u fahansanin oo macno weyn xambaarsan aan hadda seminaarkan aan macnaha aan ka faa'iiday. inta hadda macnaha aan seminaarka aan galin ka hor waxyaabo badan oo aan iga dhacsanin, waxyaabo badan aan macnaha aan maskaxdayda aan ku jirin hadda igu soo kordhay. fikirro badan iyo aragti badan aan ka kordhisay. waxaan isleeyahay wax badan ayaan ka faa'iidnay haddaan nahay maamulka degmada Afgooye iyo deegaanada hoos yimaada. tababarkan oo ku saabsanaa maamul wanaagga iyo maamulka iyo maareynta waxaan ka faa'iidnay kala dambeynta iyo xafiis walba shaqada uu leeyahay protocol ahaan iyo nidaam ahaan iyo kala dambeynta iyo wada shaqeynta ka dhaxaysa maamulada degmooyinka. wax badan oo aad u fiican ayaan ka faa'iidnay. waxaa ka mid ah waxyaalaha aan ka faa'iidnay waxaa jiri isbarbaryaac badan oo ay magaalada ka jirto oo maamulka oo nin walba shaqadiisa oo gaarka ah loogu idmaday in laga qaban jirin degmada. nin walba wuxuu rabo ayuu iska samayn jiray. maanta macallimiinta noo yimid ee seminaarka noo qabtay faa'iidada ugu weyn oo aan ka helnay nin walba shaqada uu leeyahay weygiisa waa la tusay. casharada la bixiyna waxaa faa'iido badan loogu helay xuduudaha ay kala leeyihiin maamulka, gudoomiyaha, gudoomiye ku-xigeenka, arrimaha bulshada, dhaqaalaha, xogeyaha dawladda hoose. intaba nin walba waajibaadkii loo idmaday si rasmi ah inuu qabsan karo maanta wixii ka dambeeyo. wax weyn uu ku soo kordhinaa oo aad u weyn. wax badan oo waxaa ka mid ah maalan qof walba hawsha shaqada uu leeyahay ayaa uu hadda fahmay seminaarka. horta waxaa moodaa isku dhexyaac badan iyo wax badan inay jiri jireen, laakiin hadda qof walba shaqada uu leeyahay waa iyo mas'uuliyadda uu leeyahay iyo qaabka uu shaqayn lahaa waa uu yaqaanaa. maxaa yeelay haddii la joogteeyo sida ay u shaqeeyaan maamulada maxaan ku yiraahdaa ama deegaanada wax badan ay ka faa'iidi doonaan. sababtoo ah 5 maalin oo la soo dhaafay runtii wax badan oo maamul wanaaggan ka faa'iidin. aad iyo aad waqtiyada hadda nolol sii iyo buuga casharada aan ka qaadanay waqtiga iyo buuga ma islaha. inkastoo waqtigiisa ugu yaraan hadda maanta markaan xisaabin waqtigiisa ugu yaraan ay ku fiicneed muddo bil ah. waa sii codsan lahayn in mar kale noo soo celiyo casharada muhiimka ah. ka bacdina wada shaqeynta wixii aan soo qabtay markaas oo ka baxay magaalada kale wixii aan soo qabtay inaan u sheego kale oo maxaa la dhahaa maanta safarkaasaan tegey waxaan uga imid oo soo qabsoomay intaas soo qabsoontay waa inaan u sheegaa. boqolkiiba boqol waa isku xiran yihiin inkastoo macnaha hadda aysan dhalinyarada hadda aan kasii jeclaan lahaa inta hadda ay isku xiran yihiin in ka badan isku xirnaadaan ay wada shaqeeyaan. waayo dhalinyarada macnaha waa laf dhabar maamulka iyo dhalinyarada hadday wada shaqeeyaanna dhalinyaradu waa wax badanaa qabsoomaayo saan jeclahay. waxaan codsan lahayn mid ka sii ballaaran. waxaan kaloo codsan lahayn mid gaargaar oo maamuladan gaar ah, dhalinyarada gaar ah, haweenkiioo gaar loo qabanayo tababarro intaan ka badan ayaan codsan lahayn. waxaan ba ku codsanayaa gudoomiyaha gobolka in seminaarkan iyo mid ka fiican ba aan helno
tutina la gaarsiiyey ilaa min hoos min kore macal minishiibi dowladda hoose minishiibiyaasha in naftirkooda la tababaray u baahan yihiin